السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad baan idin salaamayaa meel aad joogtaanba. maalin wanaagsan hadday maalin tahay, galab wanaagsan, habeen wanaagsan hadday habeen tahay. innagoo kasii wadanaynaa casharadeenii isku daweynta dhirta iyo cuntada, sida uu nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, cuntadana u cuna dawo ahaan, dawadana cunto ahaan u cuna. halkaa inagoo kasii wadanaynaa waxyaabaha faa'iidada leh iyo cudurro badan oo ay ka dawan yihiin cuntada iyo toobiga loo cuno cuntada iyo sida loo isticmaalo cuntada. maanta waxaynu ka hadlaynaa geed dalkeena hooyo ka baxa oo cudurro badan ka dawa ah, faa'iidooyin badanna jirka u leh, oo faytamino badan ay ka kooban yihiin. qur-aankana ku xusan, qur-aanka kariimkaana ku xusan. nebigii marka uu cunay nibirigu uu cunay ay ku soo degtay aayaddii odhanaysay wanabathnaahu fi lcaraa'i wahuwa saqiim waanbatnaa calayhi shajaratan min yaqtiin. geedka yaqtiinka la yidhaahdo af carabiga laba magac buu leeyahay. marna waxa la yidhahdaa yaqtiin oo waa kaa qur-aanka ku xusan, marna waxa la yidhaahdaa alqarac. marka inagu xaggeena waxaynu u naqaa af ingiriisiga waxa la yidhahdaa babkin, inaguna waxaynu u naqaanaa kolleyba sidaan anigu de aqaano waxaanu u naqaanaa dubbe. waana geed ka baxa wadankeena hooyo, si badanna uga baxa, laakiin fawaa'id badan buu leeyahay oo siyaabo badan loo isticmaalo. waxaa ka mid ah isagoo sidiisa loo cuno fawaa'idka uu leeyahay, iyo ininihiisa marka la cuno fawaa'idku leeyahay, marka la shiido ee saliid laga dhigo fawaa'idda uu leeyahay, iyo waxyaabaha uu ka dawan yahay. horta wax badan ee cudurrada keena jirka bani aadamka waxa weeye wax la yidhahdo oxide. marka geedkani waxaa ka buuxa waxa loo yaqaano alyaafka ee caloosha magaranaysaa cilaajka u ah, ama socodsiiya ama adayga ka ilaaliya. cunsur macdan ah oo aada iyo aada muhiim u ah oo vitamin ah ayaa ku jira oo la yidhaahdo vitamin ka la yidhaahdo jim. waxaana ku jira potassiumna sida aynu casharadii hore aynu usoo maray, potassiumku wuxuu lid ku yahay sodiumka jirka. marka waxa weeye waa cunsurka jirka dhiigga baniaadamka ka dhiga, ka ilaaliya inuu ama macaan noqdo oo sonkor iyo magaranaysaa wixii la darsa ay ku dhacaan, ama uu dhanaan noqdo oo marka uu magaranaysaa uu kaco sodiumka uu dhanaan noqdo oo uu keeno high blood iyo pressureka iyo dhiigkarka. waana cunsurka ka ilaaliya ee dila magaranaysaa noocyo badan oo viruska uu ka mid yahay, sidii aynu hadda usoo sheegnay viruska coronada oo kale uu yahay magaranaysaa dhexdhexaadkiisu uu yahay 5.8 something wax noocaasa. kanina uu kaco ilaa iyo 7.5 uu ka kaco, sidaa darteed aanu ku noolaan karin viruska coronada iyo all categoriga virusyada oo dhan. marka dhiiggaaga uu kacsan yahay, potassiumkiisu uu yahay level okay ah, wuu la dagaalamaa cudurrada ku dhaca dhiigga iyo jirkaba. waan kasii gudbaynaa fawaa'idada badan ee uu leeyahay. waxaa ka buuxa wax loo yahdo antioxide. oxideka jirka magaranaysa marka ay cuntadu ay isbedesho jirka gudihiisa markay gasho, si ay isu bedesho oxideka ka dhaca ama isdhexgalka ka dhaca ayuu magaranaysaa nidaamiyaa. vitamino badanna waa way ku jiraan. waxaana uu ka mid yahay baa la yidhi waxyaabaha ugu muhiimsan اللي كان عنصر لو يقانو ليبيتا كروتين. عنصر كلا يهدو ليبيتا كروتين oo ah anti oxide oo la dagaalama wax la yaqaano aljuduur alxurra ama waxyaabaha xorka ah ee wareega. wuuna xoojiyaa geedkani, wuxuu aada u xoojiyaa, aada iyo aada u xoojiyaa
antibody-ga ama manaacada waxa loo yaqaano jirka. Fitamiinka alif la yiraahdana wuu ku jiraa, aad iyo aad buu uga buuxaa oo ku jira wuu kaga badan yahay fitamiin alifka iyo fitamiin C-ga ku jira orange-ka ama burtuqaalka ama liin macaanta ku jira iyo khudaarta wuu kaga badan yahay. Pumpkins-ka ama yaqtiinka wuu kaga badan yahay. beta carotene البيتا كاروتين wuxuu ciyaaraa door aad u muhiim ah oo uu ka ilaaliyo jirka khatarka ah kansarka iyo cudurrada wadnaha ku dhaca iyo magaranaysaay waxa loo yaqaano naaxida jirka inuu aad u naaxo iyo sonkorta. wuxuuna dib ugu dhigaa calaamadaha gabowga iyo magaranaysaa da'da ayuu dib ugu yara dhigaa, wuu raajiyaa. wuxuuna ka mid yahay canaasirka ugu muhiimsan ee asaasiga ah ee xaafida ama ilaaliya quruxda maqaarka jirka iyo timaha. wuxuuna ka mid yahay waxyaabaha nidaam gareeya ee adjustmentka ku sameeya pressure-ka dhiigga iyo xididada. wuxuuna sidaynu sheegnay fitamiinka la yiraahdo alif iyo jim ayuu aad ugu badan yahay iyo potassium. dadka ka dacwoonaya high bloodka ama dhiigkarka ama pressure-ka ka dacwoonaya geedkani wuu dejiyaa cuntadiisa loo dawaamo oo laga dhigto cunto joogto ah oo cuntadaada ka mid ah, miilkaaga ama wajbadaha aad cuntid ka mid ah. daqadka qofka ka dacwoonaya wuu dejiyaa. by the way maaha magic, maaha just like maaha wax immediately ah ama sidii markiiba usoo baxaya, laakiin waxaad ka dhiganaysaa wax aad u dawaamisid mar iyo laba iyo saddex iyo week iyo laba iyo magaranaysaa iyo bil iyo inta ay ku qaadatoba aakhirka wuxuu keenayaa natiijad ah inuu dejiyo magaranaysaa high blood. waxyaabaha stroke la yiraahdo, cudurkan stroke la yiraahdo ee hadeerto kusoo batay adduunka waa ka dawo, wuuna ka ilaaliyaa inuu ku dhaco jirka stroke. ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu nabigiisa uu yiri waxaanu ku dul beeray, wuxuu yiri wanabatnaahu fil caraa'i wa huwa saqiim. markii uu nabirigu kusoo tuuray xeebta, nabigii oo ay dheefshiidkii caloosha xuudka ay haragii ka murxisay oo xanuunsanaya oo daciifa oo saqiimka waxa weeye waa qofka yacni aad iyo aadka u tacbaanka ah weeye saqiim. mariidku waa af carabiga waa qof xanuunsanaya, laakiin saqiimku waa mariil. waxaynu u naqaano inagu mariil, qofka mariilka ah ee aan awood lahayn weeye ee cudurku ku raago. marka waxaa la ogaaday teeda kale geedkani marka uu qofkaas hadeer qof xanuunsanayo oo haragii iyo maqaarkii uu ka dhacay oo meel cidla abcaada uu kusoo dhaco, kulliba waynu garanaynaa dee jirka waxa kusoo ururaya cayayaan iyo xasharaad iyo infection iyo magaranaysaa baa kusoo ururaya. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waanbatna caleyh, waxaanu ku dul beeray geedka la yidhaahdo iyo yaqtiinka la yidhaahdo. waxaa la ogaaday geedka yaqtiinka laba maadadoo cajiiba ayaa lagu arkay. waxaa ka mid a geedkani, geed walba oo ilaahay beeray ubaxiisu marka uu qoraxdu soo baxdo uu magaranaysaa uu kala baxaa, uu balaadha. habeenkii marka gabal ku dhacona uu is ururiyaa oo flowerkiisu uu isxidhaa. geedkan yaqtiinka la yidhaahdo flowerkiisu isma xidho, habeenkiina waa furan yahay, maalintiina waa furan yahay. waxaa kale oo cajiib ah oo lagu arkay inuu geedkani ilaaliyo oo eriyo wax allaale wixii xasharaada ee cayayaana ee flies ah uma soo dhowaadaan meesha uu ku yaalo geedkaas. that's why si uu uga ilaaliyo haraga buka ee magaranaysaa ee dheefshiidku dhaawacay, inuu uga ilaaliyo xasharaadka cayayaanka iyo wixii soo geliyay infectionka, ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmadiisa rabbaaniga ugu dul beeray inuu ka ilaaliyo wixii magaranaysaa cayayaan ee dhibaato u keenaya. waxaana buxuustu ay soo cadaysay inuu khatarka inuu kugu dhaco kansarku uu ka mid yahay geedkan cuntadiisu inuu ka yahay magaranaysaa inuu ka ilaaliyo bani aadamka. waxa muhiimka ah ee aad iyo aad aynu u eegayno ay muhiimka ah cudurka la yiraahdo prostata. horta prostata waa cudur ku dhaca ragga
shahwadiisa iyo magaranaysaa kaajahaysta iyo kaadida iyo infection badan buu keenaa aakhirkana haddaan la qalin wuxuu isu bedelaa cudurrada waaweyn ee kansarku ka mid yahay. marka number 1 dawadeesa waxaa ka ah geedkan aynu maanta ka hadlayno ee la yiraahdo pumpkins ayaa ka dawa ah saliidiisa iyo isagoo cunto ah la cuno ayaa ka dawa ah waayo beta carotene-ka ku jira ayaa magaranaysaa waxyaabo badan daweeya. waxaa ka mid ah kansarka qoolonka ama qabsiga ku dhaca ayuu isaguna magaranaysaa ayaa soo gala oo uu ka dawa yahay beta carotene. haddii qofkuba uu leeyahay qabsin uu leeyahay oo uu cuno ininihiisa hadhowto videogan dhamaadkiisa ayaan idinka daawasiinayaa anigu gacantayda ku samaynaya sida saliidda looga soo saaro loona isticmaalo saliiddiisa ama cunto ahaan ama la ismariyo ama la cabo iyadoo yani waxaynu nahno inagu dabiici ah iyadoo dabiici ah ma garanaysaa oo ah iska organic oo kala ah waxba lagu darin anigoo samaynaya ayaan inta daawasiin doona insha Allah taala practically sida loo socdo. antibody-gana saynu u sheegnay waa uu xoojiyaa geedkani. daraasad badan ayaa sheegtay daraasooyin badan baa sheegtay inuu jirka glucose-kiisa uu hoos u dhigo oo ka ilaaliyo sonkorta. insuliintana uu macdalkiisa dabiiciga ah insuliinta ma garanaysaa loo sonkoriga inuu macdalkiisa dabiiciga ku ilaaliyo. faa'iido badanna waa uu leeyahay dadka ka dacwoonaya diabeteska ama sonkoriga ama dhiig macaanka. indhaha waa u dawo oo aragtida ayuu magaranaysaa oo magaranaysaa vitamin G iyo beta carotene-ka aynu sheegnay waa maadado muhiim u ah inay kalkaaliyaan oo ay ka ilaaliyaan waxyeelooyinka isha siba dadka waaweyn. fitaminadaas ayaa magaranaysaa saacida waxaa loo yaqaano shabakiyada indhaha waxa loo yaqaano al-intikaas al-buqaci waa wax la darsa gabowga kuna dhaca cadasada isha ayuu isaguna ilaaliyaa maadad ku jirta oo la yiraahdo zeaxanthin waa zeaxanthin ayaa iyaduna ku jirta oo ilaalisa inay shabakadu ay wax ku dhacaan marka qofka uu gaboobo. faa'iido badan buu leeyahay oo ka duwan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin magarasa waxa la yiraahdo loo yaqaano haftada ama waxa laabta ku dhaca ee xasaasiyadaha ah ama asma timaha iyo saan u sheegnay iyo haraga maqaarka magarasa ururka magarasa jactadka wajiga uu yareeyo saliidiisa oo yareysa marka la isticmaalo ama la cabo. jisimkana wuxuu siiyaa energy weyn aad iyo aad wuxuu saacidaa dumarka doonaya inay miisaanka iska dejiyaan ama ragga doonaya inay miisaanka iska dejiyaan hadday cunto ahaan u qaataan miisaanka uu dejiyaa. waxaan u dareemaa qofku inuu dhergo. majmuucada ugu badan ee ay wasaaradda magaranaysaa hay'adda caafimaadka ee adduunka ay soo cadaysay inuu ka dawo yahay ama uu ay ka mid yihiin waxyaabaha ku jira baabka marka uu cuno. geedkan marka waa geed iska waa saydaliyad kaamil ah oo mutakaamil ah magaranaysaa buduurkiisa ama ininihiisa marka loo cuno isaga oo sidiisaba loo cuno isagoo magaranaysaa cunto loo cuno marka ininihiisa saliid ahaan loo isticmaalo. caleemihiisa marka la qalajiyo ee la shiido waxa loo isticmaalaa waxyaabaha jirka dhulka gubta nabarada gubitaanka baa loo isticmaalaa. waxaana hadda ay aad iyo aad ay munadamada caalamiga ay hadda ay ugu soo saareen buxuus badan inuu yahay bararka inuu ka dawo yahay bararka prostatada ragga ku dhacda cudurka la yiraahdo prostata ee ku dhacda ragga inuu cudurkaas uu dawo u yahay una ka baabi'iyo cilaaj u yahay.
waayo maadado badan oo iraab ahaan loo isticmaalo ayaa iyadoo dabiici ah ku jirta magaranaysaa ku dhex jirta qaraca ama yaqdiinka. Okay, markaan dhammaynay saliiddii waa taas, waa saliid dabiici ah organic aan waxba la gelin. waa taas saliiddu waa cagaar weeye, laakiin halkan waxay ka muuqataa inay cas tahay. ma casa, laakiin waa green. saacaddu waa green. marka madaxa, jilka, timaha waad cuni kartaa xataa marqacad yar subaxii. ilaaha ku shaahidan caafiyaad insha Allah.